waxaa dabaylo xooggan iyo duufaano aad u daranba laga soo sheegayaa gobollada kala duwan ee dalka Norway, haba ugu sii darnaadaane deegaanada galbeedka Norway, halkaasoo lagu soo warramayo guud ahaan deegaanada galbeedka iyo magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway in la hakiyay duulimaadyo badan oo diyaaradeed kuwa uu ka duuli lahaa ama ku soo degi lahaa gegida diyaaradaha magaalada Bergen iyo sidoo kale shixnado kala duwan oo gaadiid ah kuwa uu ku sii jeeda magaalada Bergen iyo deegaano badan oo kamida galbeedka Norway kadib markii ay duufaantan si aad u sii xoogaysatay lana soo sheegayo in ay barbar socdaan dabaylo aad u xooggan iyo baraf aan kala joogsi lahayn. Waxaa lagu soo warramayaa airportka Flesland ee magaalada Bergen in la hakiyay duulimaadyo dhowr ah kuwa oo ka kicitimaya magaalada Bergen iyo sidoo kale kuwa ku soo wajahnaa si lamida ayaa lagu soo warramayaa garoonka magaalada Stavanger isaguna in la hakiyay duulimaadyo badan oo ka duuli lahaa garoonka iyo kuwa ku soo wajahnaa, waxaana lagu soo warramayaa in ay ku jireen diyaarado caalami ah kuwa oo ka kala imaanaya magaalada Frankfurt ee dalkaasi Jarmalka iyo magaalada Copenhagen ee wadanka Denmark. Sidaa lamida ayaa lagu soo warramayaa in la hakiyay diyaaradihii helicopteriska ah ee ka duuli jiray magaalada Bergen kuwa oo ku wajahnaa badda qeybaha waqooyi halka shidaalka laga baaro, waxaana lagu soo warramayaa in duulimaadyo badan oo diyaarado helicopter ah oo ka duuli jiray si maalinle ah magaalada Bergen la hakiyay saake dabaylaha xooggan ee jira iyo duufaanaha aan kala joogsiga lahayn ee socda. Waxaana lagu soo warramayaa hadda in ay dabaylaha iyo duufaanada ugu adag ay ka jiraan maanta oo Isniin ah deegaanada Hordaland iyo Rogaland ee dalka Norway, halkaasoo gaadiidka iyo sidoo kale diyaaraduhu ay hakad galeen. Kooxaha saadaasha hawada ayaa ku warramaya in dabaylaha sii xoogaysan doonaan oo ay intaan ka sii badan doonaan, iyadoo la sheegayo in deegaanka Agder isaguna uu ka da'ayo maanta oo Isniin ah baraf lagu sheegay ilaa iyo 40 sentimitir xooggiisa, kaa oo lagu soo warramayo in uu si xawli ah uga da'ayo. Waxaa sidoo kale digniino culus oo hakin ah la siiyey dadkii ku safrayay ama isticmaalayay gaadiidka mootooyinka kuwa oo laga baqay in dabayluhu iyo duufaanuhu dafaan. Si lamida ayaa gaadiidka kala duwan ee caadiga ah loo siiyey digniino aad u culus oo heerkii ugu sarreeyay ah marka ay ku safrayaan wadooyinka deegaanada galbeedka Norway, waxaana lagu soo warramayaa in ay hadda dabaysha iyo duufaanta aad u sii xoogaysanayso, iyadoo laga yaabo xakinta diyaaradaha iyo gaadiidka xamuulka iyo kuwa kala duwanba ay ku sii jiraan deegaanada Rogaland iyo Hordaland ee dalka Norway. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.